maalin wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada dunida news TV. maanta waxaan diiradda saari doonaa taariikhda dalka Burkina Faso, hogaamiyaha dalkaasi Ibrahim Traoré taariikhdiisa oo kooban iyo sidoo kale dhaqanka iyo ciyaaraha uu caanka ku yahay dalka Burkina Faso. mar kale maalin wanaagsan, anigu waa Cabdiwahaab Cadow, halkan ayaan idinkala socodsiin doonaa taariikhdaasi iyo sidoo kale dhaqanadii dalkaasi iyo hogaamiyaha dalkaasi taariikhdiisa oo kooban ayaan halkan idinkula wadaagi doonaa. ka hor intii aanay reer Yurub imaan dalkaasi Burkina Faso, dhulka hadda loo yaqaano waxaa deganaa qowmiyad awood badan sida Muzi, Bubu, Lubi, Gurunsi iyo Fulani. qowmiyadda Muzi ayaa dhistay boqortooyooyin xoog leh sida Kuwandugu, Yatenga iyo Tingudugo. laga bilaabo qarnigii 11aad kuwaasoo iska caabiyey fidintii islaamka iyo sidoo kale gumaysigii Faransiiska. 1896 ilaa 1960 dabayaaqadii qarnigii 19aad Faransiisku wuxuu qabsaday gobolkaasi wuxuuna ku daray dhulweynaha uu ka talin jiray ee loo yaqaano Franja West African. 1919 ayay Faransiisku dhiseen gumaysi cusub oo la yiraahdo Upper Volta, laakiin waxay kala direen 1932 iyagoo ku daray wadamada dariska la ah. dib ayaa loo dhisay 1947 kadib cadaadis ka yimid shacabka deegaankaasi. haddaba goormee ayay ahayd madax banaanidii dalka Burkina Faso? madax banaanida dalkaasi Burkina Faso iyo sanadihii hore 1960 ilaa 1983 5 Agoosto 1960 Upper Volta waxay ka xurowday Faransiiska. madaxweynaha ugu horeeyay wuxuu ahaa Maurizi iyo Maogo, balse dowladdiisu waxay noqotay mid keligii talis ah taasoo dhalisay caro iyo kacdoon dadweyne. waxaa dhacay afgambiyaal military oo taxana ah intii u dhaxaysay 1960 ilaa 1970. haddaba maxay ahayd xilligii Thomas Sankara 1983 ilaa 1987? sanadkii 1983 Captain Thomas Sankara oo ahaa hogaamiye da'yar ayaa la wareegay awoodda afgambi ee caanka ka ahayd dalkaasi Burkina Faso. wuxuu bedelay magaca dalka isagoo magac uga dhigay Burkina Faso oo macnaheedu yahay dhulka dadka toosan. Sankara wuxuu sameeyay isbeddello waaweyn, dib u qaybin dhul beereed, xuquuqda haweenka, waxbarashada, caafimaadka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. wuxuu ahaa hogaamiye caan ka noqday Afrika, balse sanadkii 1987 waxa lagu dilay afgambi uu hogaaminayay Blaise Compaoré saaxiibkiisii hore. xukunkii military ee Blaise Compaoré 1987 ilaa 2014. Compaoré wuxuu xukunka hayay 27 sano isagoo xasilooni keenay, laakiin lagu eedeeyay kalitalisnimo iyo musuqmaasuq. 2014 wuxuu isku dayay in uu bedelo dastuurka dalkaasi si uu xukunka u sii joogo, taasoo keentay banaanbaxyo waaweyn oo ka dhaca dalkaasi. waa uu iscasilay waxa uuna u baxsaday dalka dibadiisa. markii Compaoré la riday, dalku wuxuu galay kala guur dimuqraadiyadeed. Roch Christian Kabore ayaa noqday madaxweyne. 2022 waxa dhacay laba afgambi oo military, waxaana ugu dambeyn la wareegay awoodda dalkaasi Captain Ibrahim Traoré oo hadda ah hogaamiyaha dalka Burkina Faso. xaaladda hadda dalkaasi waxaa xukuma military iyadoo ay jiraan caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin amni xumo, dhibaatooyin bini'aadanimo, dhaqaale xumo, cadaadis caalami ah oo lagu saarayo in la celiyo xukunka rayidka ah.
laakiin markii sida saxda ah loo fiiriyo Ibrahim Traore waxa uu dalkaasi ka qabtay waxyaabo muhiim ahaa oo aysan weli dhicin inay qabtaan hogaamiyaasha Afrika. Markana waxaan halkan idinkula wadaagi doonaa ciyaaraha iyo dhaqanka dalka Burkina Faso uu caanka ku yahay. ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee dalkaasi waxa ay door muhiim ah ka ciyaaraan nolosha bulshada, xafladaha iyo dhaxal dhaqameedka qaran ee dalkaasi Burkina Faso. ciyaaraha dhaqanka ee Burkina Faso waa kuwa aad u hodan ah oo ku salaysan muusig, durbaan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo taabanaya qisooyin iyo taariikh dhaqameed. qowmiyadaha sida Musi, Bubu iyo Lobi waxay leeyihiin ciyaaro dhaqameedyo u gaar ah oo lagu muujiyo xafladaha guurka, dhalashada iyo xuska ruuxiga ah. ciyaaraha maskaxda ee loo yaqaan Baigu. Baigu waa ciyaar dhaqameed oo ah gacmo toog ama army wrestling aad looga jecel yahay dalkaasi. waxa lagu qabtaa inta badan xafladaha dhaqanka iyo tartamada gobolada, waxaana loo arkaa ciyaar muujinaysa xoogga, geesinimada iyo sharafka ninka ragga ah. ciyaaraha heesaha iyo muusikada dhaqanka. muusiga dhaqameed wuxuu muhiim u yahay ciyaaraha dhaqanka, waxaana loo adeegsadaa alaabaha sida balafuun, durbaan, rigoni iyo kora. ciyaartooyda dhaqanka waxa ay sameeyaan dhaqdhaqaaqyo la jaan qaadaya heesaha muusiga dhaqanka oo badanaa xambaarsan fariimo qoys, jacayl, suugaan diimeed iyo wixii la mid ah. xafladaha maskarada. qowmiyadaha sida Bau iyo Nuna waxay leeyihiin ciyaaro dhaqameed uu la socdo waji xir maskara ah oo matalaya ruuxyo ama xayawaan. waxaa loo adeegsadaa in lagu xuso dhalashada, dhimashada, beergoosashada ama sidoo kale dhacdooyin muhiim ah. ciyaaraha caruurta iyo madadaalada. caruurta reer Burkina Faso waxa ay ciyaaraan ciyaaro dhaqameedyo ay ka mid yihiin lami, ciyaar la mid ah kubadda gacanta, ama awaale, ciyaar maskaxeed oo laga ciyaaro looxa leh daloolo. wuxuu ka mid yahay ciyaaraha Afrika ugu fac weyn. xafladaha dhaqanka iyo ciyaaraha. waxaa jira xaflado dhaqameed sida festival oo lagu soo bandhigo ciyaaraha dhaqanka, suugaanta iyo fanka maskarada. ciyaarahan waxay noqdaan goobaha ugu waaweyn ee lagu soo bandhigo hidaha dhaqanka iyo sidoo kale isku xirka bulshooyinka dalkaasi. ciyaaraha dhaqanka ee dalkaasi Burkina Faso waxay ka turjumayaan isbedelka jiilasha, diinta, deegaanka iyo farshaxanka. waxay u yihiin dadka Burkina Faso aqoonsi, isxusuusin iyo midnimo qaran. weli waxaad inaga daawanaysaan Dunida News TV daawadayaal. weli waxaan bartamaha kaga jirnaa taariikhda dalkaasi Burkina Faso. markana waxaan idinla wadaagayaa taariikhda iyo nolosha Ibrahim Traore. waa madaxweynaha hadda haya xilka madaxweynaha ee dalka Burkina Faso oo xukunka la wareegay sanadkii 2022. magaciisa oo buuxa waa Ibrahim Traore. waxaa la rumaysan yahay inuu ku dhashay 1990 ilaa 1988 magaalada Bundukoy oo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Burkina Faso. waxbarashadiisa iyo noloshiisii hore, Traore waxa uu bartay cilmiga geologiga, dhulka iyo macdanta jaamacadda Ouagadougou. intii uu jaamacadda joogay wuxuu ka mid noqday ururada ardayda mucaaradka, wuxuuna ahaa shakhsi firfircoon oo hadal adag. xirfadda military ee Ibrahim Traore, hogaamiyaha dalkaasi Burkina Faso. kadib waxbarashada wuxuu ku biiray ciidanka militariga ee Burkina Faso, gaar ahaan ciidamada gaarka ah ee loo yaqaano artillery unities. wuxuu ka qayb qaatay
howlgallo ciidan. Waxaa lagu yaqaanay in uu yahay asgari geesi ah, dad jecel kana fog musuqmaasuqa. Afgambigii 2022 ee uu xilka kula wareegay madaxweyne Ibrahim Traore. Sebtembar 30 2022 Ibrahim Traore waxa uu hogaamiyey afgambi military oo meesha ka saaray hogaamiyihii markaa jiray ee Paul Henry Damiba. Xukunka Ibrahim Traore. Markii uu xukunka qabsaday, Traore wuxuu noqday hogaamiyihii ugu da'da yaraa ee Afrika talada haya. Da'diisu waxay ahayd qiyaastii 33 ilaa 34 sano. Wuxuu ballan qaaday in uu dib u soo celinayo ammaanka dalkaasi Burkina Faso iyo in uu xukumo si cadaalad iyo hufnaan leh dalkaasi. Waxa lagu xasuustaa in uu yiri, ma rabo in aan noqdo madaxweyne, waxaan doonayaa in aan badbaadiyo wadankayga. Waxa lagu amaanaa in uu leeyahay wadaniyad iyo karti ciidan, laakiin sidoo kale waxa jira walaac ku saabsan sii wadashada xukunka military iyo dib u dhaca dimuqraadiyadda ee dalkaasi. Xaaladda hadda ka jirta Burkina Faso. Ibrahim Traore wuxuu weli xukumaa dalkaasi Burkina Faso isagoo ah madaxa ku-meel gaarka ah ee dalkaasi. Wuxuu ku howlan yahay soo celinta dhaqaalaha dalkaasi, xoojinta xiriirka gobolka iyo iskaashiga amniga. Waxaana jira taageero gudaha ah oo badan, balse hay'adaha caalamiga ah waxay ku cadaadinayaan in uu ku laabto xukun rayid ah oo dimuqraadi ah. Gudaana daawadayaal, taariikhdii koobneed ee dalka Burkina Faso iyo hogaamiyaha dalkaasi Ibrahim Traore halkaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Anigoo Cabdiwahaab Cadow Maxamuud ayaa idila socodsiinayay. Inta aan mar kale dib u kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.